السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى آذان حاج على أجين وريان نيشن مeel kastoo aad joogteen habeen wanaagsan. waxaan rabay video 5 daqiiqa oo dhaqso ah inaan duubo oo maaragtay ugu talagalay waalidiinta Soomaaliyeed kuwa wadan gudihiisa iyo wadanka dibadiisaba marka si ay macnaha ay u kordhi lahaayeen qaabka ay caruurtooda ula dhaqmaan. ilaah baa awlaad wanaagsan sameeysa marka ilaah si ay macnaha ay awlaad wanaagsan u tarbiyeystaan. marka sida child psychologist ama dadka barta maskaxda iyo mindka iyo say u dhaqmaan caruurta ku taliyay shantan waa 5 qodob oo very important aad u wanaagsan. marka ani nafteeda aad aan u isticmaalaa. marka 5 qodob idin sheega waxaan isku dayaa 5 daqiiqo inaan ku dhameeyo. qodobka koowaad waxa waaye waliga labada waalid caruurta hortiisa inaysan ku murmin hataa haddii qofka oo single parents oo yahay inuusan caruurta hortooda ku qaylin ama qof kaleeto uusan la murmin ama telefonka uusan ku qaylin because caruurta markay ku ag joogto oo aad markasta qaylinaysa ama qof la murmaysa ama la dagaalamaya caruurta waxaas arrintaas dhibaatadaas dhacaysa waxay u haystaan wax nolosha ka mid ah. marka waxay develop gareynaan ama waxay baranayaan qaab dhaqan in ayagana qayliyaan ama dadka la murmaan markay wax la isku qabsado. mid kaleeto oo that's number 1 waaye. tan labaad waxa waaye waliga lead by example. marka ilmahaada wax looma sheego laakiin wixii baa la tusaa. hadda salaada 5 salaadood dukanaysid markasta ay arkayaan kitaab akhrinaysid buug kale akhrinaysid maaragtay waxaas aad sameynaysid bay kugu dayanayaan ayagana way sameynayaan. laakiin adigiyoon wixii sameynayn ma dhihi kartid qofkan ma ku qayli kartid caruurtii waxa sameey. marka laakiin gurigii aadaabtii iyo dhaqankii loogu dhaqmayo wixii inay arkaan waaye. markaas practice-kii caruurta way u gudbaysaa way ku dhageysanayaan because wixii baad qabanaysaa waa you leading by example. actionkiyaa sameynaysaa dhaqdhaqaaqiyaa sameynaysaa ficilkiyaa sameynaysaa marka way arkayaan way kugu raacayaan way sahlan tahay inaad maaragtay u sheegtid inaad ku dhaqantid. mid saddexaad oo aan rabay inaan ku sheego waxa waaye labada waalid always waa inay isku mabda ay yihiin. marka caruurta hadduu mid u tago oo wax u diido waalid kale inuu ansixiyo ma aha because waxay dhalinaysaa inuu caruurtii midkii waalid ay ka jeclaadaan waalidkii kale because hadday hooyada u diido ee aabaha u tageen aabihii uu siiyo dhibaato imaanayso because aabihii waxay u arkaan qof xun oo wixii u diiday macnaha hooyadii waxay u arkaan qof xun inay tahay oo wixii u diiday aabihii markasta wax ka raadsanaan. sidoo kale hadday hooyada sameysana saas ayadana hooyadii waxay u arkaan inay wanaagsan tahay aabihii diida. marka always weydii aabaha muxuu ku dhahay hooyada maxay ku dhahday markaasay tahay hal go'aan inaa isla yeelataan aad u fiican tahay. ayaga naftooda waxay siiminaysaa consistency wax la dhahaa oo macnaha dhaqan oo aysan maaragtay ay ku wareerin because way ogyihiin waxaan ice creamkan ma cuni karti saacadan because aabaa kuu diiday waana hooyana way kuu diiday marka timeka ice creamka ma la joogo wuu ogaanayaa cunuga marka waxyaabahaas wuu baraan because caruurtan aan ilaahay markuu noo dhiibayo warqad waaye annaga iyo environmentiga ay degan yihiin baa ku qorta wax. qodobka afraad aan rabo waxaa waaye caruurtaada inaad saaxiib la noqotid da' kastay ahaadaan markay yaryihiin ka bilaaw ilaa always inaad adiga saaxiib la noqotid aad u sheegtid la sheekaysan kartid waxa aysan kaa qari karin ee saaxiibadooda waxay kasoo maqlaan kuu sheegi karaan iskuulka waxay ka maqlaan kuu sheegi karaan. markaasaytana waxaa isla noqonaysaan dad isfahansan oo maanta day dhibaato haysto ama wal ama arrin inay sheegto ma qarinayo qofkii caruurtii way ku imaanaysaa waxay leedahay hooyo aaba arrintaana jirta maanta. antan ugu dambeyso aan rabo inaan ku xiro meesha waxaa waaye caruurta lama dilo haddii ay qalad sameeyaan because qaladka markay sameeyaan haddaad caruurta dishid ama aad ku qaylisid qaladka ku xiga ay sameynayaan way kaa qarinayaan because waxay ogyihiin ina maaragtay dil ama qayle ay ka dambeyso. marka caruurtana xumaan kama aha wixii markay qarinayaan kuma necba laakiin waxay leeyihiin qayladaas iyo dagaalkaas iyo waxaasay diidayaan buu wixii ay dib u dhigayaan. caruur waxaa jirta la xumeeyo oo waalidkooda aan u sheegi karin. caruur waxaa jirta maaragtay dhibaato iskuul ka soo gaarto oo waalidka aan u sheegi karin because hooyadaa waxay leedahay maxaa meeshaas ku geeyay maxaase aabihii waxaa le adi maxaa ku geeyay yaa ku geeyay meeshaas yaa see u tagtay halkaas baa lagu ogayaa halkaas mar ku dhahay
marka caruurtana waa caruur ilaa maskaxdooda wixii caruur loo dhahay qabtaa ilaa qofka maarkino ilaa 20 years plus oo gaara caruurta maskaxda markaasi ay fully capacity macnaha waxay qabtaa ay ku fikiri karto ay logic ku sameyn karto ee waxyaabo macquul ku gudbi karto marka always caruurta la sheegan saas maarkino qaraaca laga dhaafo haday wax qaldaan tartiib ula hadal waxa tiraahsan isaan waa ku qaldaneed sababtaasaan ugu qaldaneed marka next time haday saas dhacdo ii sheeg si aan wixii aan wax ugu qaban markay wax wanaagsan sameeyaan always waa laga farxiyaa waxyaabaha oo hadoo kale wadamadan aan ku noolnahay kale dadkii holiday anaga diinteena aysan ogoleen ama aysan xaaraanka macquul aan ahayn macnaha inaan celebrate garin Christmas iyo maxaa la Valentine's Day iyo waxa lagu leeyahay maxaa la Halloween iyo waxa sidaa jiro marka maalmaha ciida iyo maalmaha kale oo ay farxadda ay jirto oo sanadka muslimiinta waxa ku jira maaragtay maalmo badan oo karaamaysan maalmahaas ka farxi guriga special ka dhig gift fiican si marka kale tay wax achievement sameeyaan gift si caruurta ama waxa awood si banaanka hataa la soo wareegtay soo celisid wax weyn ay ka tahay ma aha always ina material caruurta siisid waqtigaada waa very important caruurta aad u jecel yihiin waalidkooda inay time la qaataan ana xasuusto markaan yaraa aabay marka oo banaanka ii wado shaah ama la socaba ama farxadda iyo saan dareemi jiray ilaah ogaa marka intaas rabay in la sheekaysto waa video degdeg ah marka timekiina inuu qaali yahay waa ogahay jazakallahu khayr please share garee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.